kulan wacan saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaanu ka hadlaynaa mowduuc muhiim u ah dhalinyarada waxaanu halkan idinkugu soo gudbinaynaa talooyin uu bixinayo maalqabeenka reer China ee Jack Ma. Young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. dhalinyaradu waa halka berri dhalinyaradu waa halka walwal oo dhan dhalinyarada haddii aad la joogtid waxa aad noqonaysaa mid ay ka buuxdo tamar balse talada aan siiyo dhalinyarada waa talada aan sidoo kale siiyo naftayda taasoo ah waxba ma sahlana wax bilaash ah ma jiraan haddii aad doonayso inaad guulaysato waa inaad dhabar adeegtaa marka la eego mugga ama cabirka shirkadda Alibaba 18 sano ilaa maanta waa nasiib badan nahay laakiin si adag ayaan u shaqaynaa in ka badan dadka weligan si fiican uma seexano fiidkiina ma caweyno ama ma baashaalno waxaan safray sanadkii la soo dhaafay 867 saacadood oo aan diyaarad ku socdaalay si adag ayaan u shaqeeyaa kooxdaydu aad bay u shaqaysaa 18 sano waxaan u shaqaynaa sidii shirkad caadi ah oo jirta 70 sano maalin iyo habeen wax bilaash ah ma jiraan wax fudud waa inaad u fikirtaa si ka duwan dadka oo aad samayso wax ka duwan bilowgii hore ee shirkadayda marka fikradaha qaarkood la ila yimaado oo la igu dhaho Jack tani waa fikrad fiican oo aan fiiriyo qof kastaana uu leeyahay waa fikrad fiican caadiyan meel ayaan iska dhigaa maxaa yeelay qof walba wuxuu leeyahay waa wanaagsan tahay marka dadka kale oo dhan oo fakaraya haddii qof walba yiraahdo tani waxay noqon doontaa mid aad u adag waxaan aad u xiiseeyaa su'aashaas adag waanan soo qaadanayaa anigoo leh sidee ayaan ugu qaban karnaa qaab kale tani waa inay noqotaa mid gaar ah oo ay ka duwanaato kuwa kale tani waa taladayda sidoo kalena waxa aan u sheegaa naftayda maalin walba maanta waa mid aad u adag berri waa ka adag tahay saa dambase waa sahlan tahay laakiin dadka badankood waxay ku haraan waqtiga hore waa inaad si adag u shaqaysaa maalin kasta oo adag xaalad kasta oo adag dhibaatooyinka aad la kulmayso kuwaasi waa tababarka naftaada markii aad ka qalin jabiso dugsigaaga waxaad bilowday xirfadaada waxbarasho markii aad qaadatay dibloomada bachelorka ama xataa PhD waa shahaado waalidka ayaa waxbarashada ka bixinayay muddo 4 sano ah caqabadaada dhabta ah waa markaad ka baxdo jaamacadda nolosha dhabta ah ayaa bilaabmaysa imtixaanka dhabta ahina wuu bilaabmayaa tijaabada dhabta ahina way bilaabmaysaa taasi waa nolosha marka hal shay ayaad nasiib u leedahay sidaan iri haddii ardaydu aysan noolaan karin ama samata bixi karin 99.9% dadka adduunka ku nooli ma noolaan karaan kaliya adiga ayaa leh kalsoonida waxaad awoodi doontaa inaad wajahdo caqabada mustaqbalka haddii aad tahay 20 ilaa 30 sano jir fadlan raadi maamulo wanaagsan khasab ma aha shirkad wanaagsan wax ka bara maamulaha baro sida wax loo sameeyo marka aad tahay 30 ilaa 40 sano jir isku day inaad nafsiyan wax u samayso haddii aad run ahaantii doonayso isku day markaad 40 ilaa 50 sano jir tahay samee waxyaabo aad ku fiican tahay kadib 20 sano oo aad wax baranaysay waa inaad samaysaa waxaad ku fiican tahay marka aad tahay 50 ilaa 60 sano jir waqtigaaga ku bixi taageeridda dhalinyarada kolkaad ka weyn tahay 60 sano waqti la qaado carruurta aad awowga ama ayayda u tahay taasi caadiyan waa sida ay dad badan yihiin kolka markaad qalin jabiso ama markaad jaamacadda uu ku jirto ha ka fikirin waxaan rabaa inaan iska casilo iskuulka oo aan noqdo Bill Gates kale sababtoo ah Bill Gates wuxuu ka tagay Harvard dunida waxa ka jira hal Bill Gates oo kaliya marka aad qalin jabiso hal shirkad waxa ugu muhiimsan helitaanka madax wanaagsan oo ku tababaran kara ku edbin kara oo ku sheegaya waxa wanaagsan oo saxda ah way ka muhiimsan tahay shirkad wanaagsan dabcanna shirkad wanaagsan oo maamulo fiican leh ayaa xataa sii wanaagsan kadibna sii wado noloshaada saaxiibayaal waxa inta ku eg talada uu Jack Ma maalqabeenka reer China siinayay dhalinyarada iyo ardayda waad ku mahadsantihiin waqtigiina ee nabadgelyo